kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kasta dunida ka joogtaan halkaad nagala socotaan waa channelka Fandor Media oo caalamka gudbiya barnaamijyo xiiso leh warkii ugu dambeysay ee social media la isla xiriiray fadlan walaal macna ta ku cusubta channelka subscribe saara gambalka kana furo maanta barnaamijkan waxaan ku soo qaadanaynaa maanihi isbuucyadii ugu dambeysay social media hees aadna loo hadalhay dadka badan ay falanqeynayeen inay kala tageen ama khilaaf uu soo kala dhex galay waa Rashka Boy iyo Xabse oo heshiiyey khilaafkoodiina laga gaaray heshiis buuxa isbuucyadii ugu dambeysay aad loo hadalhay khilaafkan soo kala dhex galay Rashka Boy iyo xaaskiisa Xabse oo caan ka ahay barta ay ku leeyihiin YouTube-ka ee Rashka Boy halkaasay dadyo badan ku madadaali jireen barnaamijyo xiiso leh soo gali jireen dadyo badan oo taageeran ay ku xiraayeen lamaanahan da'da yaraa balse nasiib darro ay muddooyinkii ugu dambeysay kala maqnaayeen wax muuqaal aysan soo duubin khilaafna uu soo kala dhex galay sida uu sheegay Rashka Boy balse arinta farxadda leh ayaa ah khilaafkii maalmaha soo jiitamayay social media-na aadka u heysay in khilaafkaasi xal waara laga gaaray taasoo la soo gabagabeeyay gebi ahaanba khilaafkaasi heshiis buuxana laga gaaray lamaanahan ay dib ugu soo noqon doonaan barta ay ku leeyihiin YouTube halkaasay soo geli jireen muuqaalada quruxda badnaa noloshoodii horena ay dib u sii wada doonaan sa oo ah xaaska Rashka Boy waxay barta ku leedahay Instagram-ka soo dhigtay masawir iyo qoraal isla socda kaasi ku cadeynayso khilaafkii maalmahan jiray inuu soo afjarmo qoraalkan ayaan u dhignaa sida tan guys farxad sheega insha Allah khilaafkii waa xalismi rabaa waaba xalismay iska dheh allaha dib han suuqeena soo celiyo dhammaanteen waad mahadsantihiin waa qoraalkan yar ee gabnay sawirkan oo la socday ee Xabse ay soo dhigtay barta ay ku leedahay Instagram-ka kaas oo farxad badan ka muujiyeen taageerayaal badan oo taageeri jiray lamaanahan da'da yaraa soona dhaweeyeen qoraalkan iyo sawirkan kale Rashka Boy waxa uu soo dhigay muuqaal isku la jiraan Xabse kaas oo joogo studio heesna uu qaaday Xabse waxaana sheegay heestan inay tahay hees uu talagalay xaaskiisa Xabse Fandor Media haddaan nahay waxaan soo dhaweynaynaa heshiiskan iyo arinta farxadda leh ee ka soo yeertay lamaanihii da'da yaraa ee aadka loo jeclaa lana xiisay jiray ee YouTuberada ah waxaan leenahay kusoo noqda lamaanihii guuleysta isbuucyadii ugu dambeysana aad loo hadalhay lamaanahan da'da yaraa khilaafkii soo kala dhex galay oo muddooyinkii ugu dambeysay ama isbuucii ugu dambeeyay aad loo hadalhayay dadyo badan dusha uga tuureen Rashka Boy waxa ayna sheegeen inuu yahay khiyaanoole kaasoo khiyaanay Xabse balse aysan waxba ku ogeyn dadkaasi arinta xaqiiqda jirta ee ah lamaanahan waxay ku kala maqnaayeen balse nasiib wanaag ay soo noqon doonaan maalmaha soo socda muuqaalana ay soo wada geli doonaan YouTube-kooda arrintaasna kasii murjin doonta dadyo badan oo cadow ku ahay Rashka Boy iyo Xabse ayaana qaatay lamaanihii ugu shana 2020 biladaas oo bixinayay Asad Xaaji oo asna YouTuber markaad nagala socotaan saaxiibayaal waa channelka Fandor Media oo caalamka gudbiya barnaamijyo xiiso leh warkii ugu dambeysay ee social media la isla xiriiray iyo waxyaalihii ku cusbaaba fadlan haddaa ku cusubta walaal macaan channelkan Fandor Media subscribe saaro si ku soo dhacan waxyaalahan soo gali markasta gambalekana furo haddaad ku cusub tahayna usii sheergara asxaabtaada muuqaalkana like saar ood ku mahadsantihiin daawashadiina iyo sida qiimaha badan aad noola socotaan markasta waa bahda Fandor Media oo isku duwan oo idin leh kulanti wacan saaxiibayaal iyo video kale oo xiiso leh